waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka ka socda dalka Itoobiya. Qodobada aad daawan doontaan saaxiibayaal waxaa qayb ka noqonaya kooxda TPLF oo ku dhawaaqday in ay ka baxday heshiis walba oo lagu gaari lahaa wadahadal diyaarna ay u tahay dagaal. Warbixin ayaynu kaga haynaa maxaa ka jira in ay ku tashanayso hub fara badan oo ay ka heleen dhinaca dowladda Mareykanka oo si aad u taageerto kooxdan. waan idiin soo gudbin doonaa daawadayaal warbixino iyo xogo muhiim ah oo arrimahaasi la xiriira. Itoobiyana waxa ay jawaab la yaab leh ka bixisay hadalka TPLF ee ah in ay dagaal diyaar u tahay. xaalka Itoobiya mugdi ayuu soo gelayaa. Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmedna xaaladda ayaa ku sii xumaanaysa haatan. ma iscasili doonaa mise dalka ayuu isaga bixi doonaa? waan idiin soo gudbin doonaa daawadayaal qodobadaasi aad bixin ugu soo kordha intaynu barnaamijkeena ku guda jirno ayaadna daawan doontaan. balse haddii aad nagu cusub tahay oo marka ay kuugu horreysayna daawanayso subscribe channelka inoo saar sii share garay muuqaalka u laag saar sidoo kalena gambareelka furo si ay mar walba kuu soo gaaraan xogaha aynu halkan soo gelino. waadna ku mahadsan tahay saaxiib la socodkaaga la jaanqaadkaaga intaba aynu ku bilowno markan. kooxda TPLF ee dagaalka xooggan kula jirta dowladda dalka Itoobiya ayaa waxa ay sheegtay in ay ka baxday gebi ahaanba wax wada hadal oo markaasi lagu xalinayo isla markaana lagu dhexdhexaadinayo dhigooda Itoobiya iyo iyagaba si markaasi loo joojiyo dagaalka markaasi muddada 2 sano iyo barka ka badan ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya isla markaana loo badbaadiyo dadka rayidka ah ee ku dhibaatoonaya gobolka Tigray. TPLF madax u hadashay ayaa waxa ay sheegeen in aysan haatanba diyaar u ahayn wada hadal isla markaana kaliya ay xabadda wadi doonaan inta ay ka gaarayaan magaalada caasimadda ee Addis Ababa. xilka ugu sareeya dalkaasina ay ka tuurayaan Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo 2018 xilkaasi isagu la wareegay muddo 27 sanadood kadib oo Tigray markaasi ay dalka Itoobiya guud ahaan xukumaysay. wararka ayaa waxa ay sheegayaan in sababta ka dambeysa in kooxda TPLF ay ku dhawaaqdo inay dagaal diyaar u tahay ayaa waxa ay sheegayaan in markaasi dowladda Mareykanka ay hub fara badan ka heleen isla markaana taangiyo iyo gantaalo waaweyn ay soo gaarsiisay dowladda Mareykanka jabhadda TPLF oo dagaalka kula jirta ciidamada dowladda Itoobiya. arrintan ayaana ku dhiirigelisay ciidamada markaasi TPLF in ay diidaan wada hadal oo saacado ka hor iyagu ay dalbanayeen in markaasi ay la galaan dowladda Itoobiya. Mareykanka ayaa aad u taageero kooxda ka dagaalamaysa waqooyiga dalka Itoobiya ee TPLF iyagoo markaasi soo gaarsiiyo kol hore hub aad u tiro badan iyo lacago badan oo ay hub ku iibsadeen. arrintan ayaana ka dambeysa in kooxda TPLF ay sheegto in aysan asalba diyaar u ahayn in ay galaan wada hadal markaasi dowladda Itoobiya lagula dhexdhexaadinayo oo lagu joojinayo dagaalka ka soconaya gudaha dalka Itoobiya gaar ahaan gobolka markaasi waqooyiga ku yaala ee Tigray oo TPLF markaasi ay sheegto in ay ayagu difaacayaan isla markaana ay u dagaalamayaan. hogaamiyaha kooxda TPLF Tadesse Waride ayaa waxa uu sheegay in kooxdu ay isku diyaarinayso in ay qaado dagaal ba'an oo wareegiisa saddexaad ah. waraysi uu siiyay TV-ga Tigrayga hogaamiyaha ciidanka argagixisadu waxa uu sheegay in waxa aan rabo in aan markaasi la xiriiro waa in aan diyaarinayno ciidan ahaan si aan u diiwaan gashano natiijo wanaagsan oo muuqato oo dagaalka aynu ka gaarno. argagixisadu waxa ay muujisay hadafka dagaalka ee TPLF iyo diyaargarowgeeda dagaal iyaga oo soo abaabulay dagaalyahano aad u badan oo shacabka markaasi ay ka soo qasbeen. waxa uu sidoo kale tilmaamay in kooxda argagixisadu ay weerar qaadi karaan waqti kasta. isaga oo ka hadlaya xabajoojintii markaasi burburtay ee 24 Agoosto ku ekayd ayuu waxa uu sheegay in tani ma damaanad qaadayso in aan markaasi ku lug yeelan doonin colaado waaweyn iyo dagaalo ayuu yiri. sida laga soo xigtay isaga fursadda xigta ee aan haysano waxay noqon doontaa awood howlgallo dagaal iyo sidoo kale ikhtiyaar kasta oo kale si aan u gaarno heer lagu gaaro baahida dadka Tigray oo lagu caawiyo. waxaa xusid mudan in dowladda federaalku ay ku dadaalayso sidii ay nabadda ugu soo dabaali lahayd waqooyiga dalka Itoobiya iyadoo qaadaysa tallaabooyin loogu gogol xaarayo wada hadal nabad waarta iyo sidoo kale abuurista xiriir aan la isku haleyn karin oo ay la yeelanayaan howlgalayaasha markaasi arrimaha bani'aadanimada ee goobaha colaaduhu ay ka jiraan. si kastaba ahaatee kooxda TPLF oo mowqifkeeda markaasi shakiga leh ka taagani ma aha mid markaasi ka soo horjeeda dadaalada nabadeed ay bixiso dowladda Itoobiya. marka la eego hadalka Tadesse wuxuu cadeeyay in kooxdu ay abaabulayso tiro badan
oo argagixiso ah gobolka deriska la ah si ay markaasi u furto dagaal kale. waxaa kale uu ka gaabsaday in mustaqbal ifaya uu ka imaan doono dagaalka, wuxuuna sheegay in markaasi ololayaasha aanu hadda kadib samaynayno ma noqon doonaan howlgallo gooni ah, waxaana markaasi la fulin lahaa si dagaalka loo dhammeeyo. inkasta oo ururka TPLF aanu ahayn koox la aamini karo, haddana xisbiga talada haya ee Prosperity Party oo PP loo soo gaabiyo wuxuu qaatay go'aan ah in lagu xalliyo dhibaatada ka taagan waqooyiga dalka wadahadal nabadeed, balse markaasi ciidamada TPLF ayaa doonaya in aysan wax wadahadal gelin sida ay sheegeen mas'uuliyiinta ugu sarreysa ee jabhadaasi, iyaga oo ku goodiyay in kaliya dagaalka markaasi ay sii wadi doonaan, isla markaana ay doonayaan inay gaaraan magaalada caasimadda ee Addis Ababa oo uu ka arrimayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo sidoo kale madaxda ugu sarreysa ee dowladda Itoobiya. TPLF waxa ay sidoo kale wacad ku martay inay baabi'in doonto goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada federaalka ee Itoobiya ee ka agdhow gobolka Tigray iyo sidoo kale xuduudaha uu gobolkaasi la wadaago gobolada Amxaarada iyo Canfarta, iyadoona TPLF maalmihii ugu dambeeyay ay garab xoogan ka helaysa maleeshiyaad ka soo jeeda Canfarta iyo sidoo kale Oromada, waxaana markaasi dagaalka xoogiisu uu maalmihii ugu dambeeyay ka socday xadka ay wadaagaan Canfarta iyo sidoo kale Amxaarada, halkaasoo dagaal culus markaasi uu ku dhex maray ciidamada dowladda Itoobiya oo garab ka helaya maleeshiyada faanada ee ka soo jeeda Amxaaro iyo sidoo kale ciidamo Eritrean ah oo iyagana markaasi la sheegay in ay ku sugan yihiin dalka Itoobiya iyo jabhadda TPLF oo iyaguna Canfarta markaasi maleeshiya ka soo jeeda garab xoogan ka helayay. dagaaladii ugu dambeeyay ee goobahaasi ka dhacay ayaana la soo warinayaa in ku dhawaad 150 qof ay isaga dileen dhinacadii halkaasi ku dagaalamaya. sidoo kale waxaa jira dad rayid ah oo aan tiradooda la sheegin oo dagaalkaasi ku dhaawacmay, sidoo kalena qaarkood ay ku dhinteen. hanti fara badan ayaa ku burburtay, waxaana markaasi jira in gawaari dad shacab ay leeyihiin lagu gubay, guryo sidoo kale dab la qabadsiyo oo la gubay, iyadoona ay jiraan dad kale oo rayid ah oo goobihii ka barakacay isla markaana gaaray xadka Itoobiya ay la wadaagto Suudaan, halkaasoo xiriyo macmala dowladda Suudaan ay ugu dhistay walow dhibaatooyin xoogan ay halkaasi ku haystaan. dagaalka ayaa markaasi la filayay in wadahadal lagu dhameeyo, balse hadalka ka soo yeeray madaxda ugu sarreysa jabhadda TPLF ah inaysan doonin wadahadal balse ay diyaar u yihiin dagaalka ayaa waxaa la fahansan yahay in uu dhibaato xoogan markaasi ku sii noqon karo dadka ku nool dalka Itoobiya guud ahaan, gaar ahaan gobolka Tigray. arrintan ayaana la soo warinayaa in ay saameyn xoogan ku leeyihiin wadamada reer galbeedka, iyagoona markaasi hubaynaya labada dhinac. sidoo kale dowladda markaasi Itoobiya ayaa iyana waxa ay markaasi lafdhabar u ah dagaalkeeda ciidamo ka socda Ruushka iyo kuwa Shiinaha markaasi ka soo jeeda. sidoo kale dowladda Itoobiya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska loo yaqaano ayay ka heleen dowladda Turkiga, halkaasoo ay ku geysanayaan xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha, iyagoo duqeymo xoogan ka geysanaya gobolka Tigray, gaar ahaan magaalada Makalla, halkaasoo la sheegay inay ku dileen caruur iyo sidoo kale haween aad u fara badan iyo dad da' ah oo aan waxba galabsanin dagaalkana aan ku jirin.